Sheekadii boqorada barafka. Beri hore waxaa jiri jiray gawar iyo wiil oo saaxiibo dhab ahaayeen. Saaxiibtinimadoodana aad ayay u wanaagsanayd. Mar walbana waxay jeclaayeen wax walba wada jir inay u wada qabsadaan. Subax kastana waxay waraabin jireen beeraha. Saaxiib, ayeeyadeeda hooyadaada waxay weydiisay caawi inaad gurigeena joogtid. waxaana ii ballan qaaday inay sheeko qurux badan oo u sheekeyn doonto. Soo ma imaanaysid? waan ka helay Aasiya. Aniga waan jeclahay ayeeyada sheekooyinkeeda. Caawa maqribkii ayaan imaanaa. Markii fiidkii la gaaray, wiilkii yaraa wuxuu soo aaday gurigii Aasiya si ayeeyadeeda u sheekeyso sheeko qurux badan. Ayeeyo, maxaa way sheekadan u sheekeynaysid caawo? Waxaan igaaga sheekeynayaa boqorada barafka. Wow! Aniga aad ayaa u jeclahay. Laakiin ayada mar walba magaceeda la sheego ma loo jeedaa? Miyaarad weyn ayay noo u jeedaa. Qof walba magaceeda sheega way arkaysaa ayada. Waxaas ma jiraan. Boqorada barafka waa sheeko caruureed. Ayadana wax jira ma oho. Boqorada barafka way maqlaysay waxa uu ka sheekeynayo wiilka. Ma ii rumaysanin maaho. Waxaad ku barayaa barafka cad qofkee tahay. Meeshaan ayaa ku keenaya baraf ayaana kaa dhigayaa. Waxaana kaa xoreynayaa kuleelka. Aniga waxaan ahani dib ayaa ka baranaysaa. Haddana aniga waxaa falkeeda kala sida adiga kuu soo qaban lahaa. Boqorada barafka wiilkii waxay u dirtay sixir si maskaxdiisa ay u bedesho. Sidaas yaa u hadlin mar damban waxaas ha dhihinkee. Sixirkii wuxuu soo gaaray gurigii Aasiya. yaa soo karaacay. Wiilkii yaraa wuu arki waayey waxa dariishada soo qarqaraacayo. maxaa waay waxaan isoo weeraray. Aniga ma xamiiska celin kari. maxaa waaye? Maxaa qaldankee? Maxaa ku daare? Wax walba way qaldan yihiin. Keenba wiilkayga ku fiiriye. Aniga ay taawanin. Iga fogow. Waji cusub ayuu la soo baxay. Ayagana aad ayay midaasi u la yaabeen. Guriga ayuuna habeennimadii iskaaga tegay. Subaxii xigani sida caadada ahayd, asigii Aasiya ayaa wax walba isla qabsan jireen. Balse subaxan wuu ka bedelnaa. Maxaa igaaga tagaysaa isug? Aniga maxaa igaaga aamusan tahay? Maxaad dareemaysaa hata? Iga fogow Aasiya. Aasiya waxay la yaabtay saaxiibkeeda isbedelkan weyn oo isku bedelay. Ayadana aad ayay u ooysay. wax walba ay wada jir u qaban jireen. Keligeeda ayuu ku soo afjarmay. Ayadana midaasi aad ayay u caajistay. Ileen uma baranin inay keligeed wax walba qabato. Maxaa kaa qaldan gabadheedii? Waaye ayeeyo. Siduu haweenkii gurigeena uu tagay ilaa hadda isbedel ayaa ka muuqdo. Anigana si xun ayuu ula dhaqmay wuuna iga tagay. Gabadheedii waqti iska sii waayo saaxiibtinimadiina dib ayay u soo laabanaysaa. Subaxii xigo Aasiya waxay ka soo baxday guriga, balse waxay aragtay arrin yaab badan. Waxay aragtay boqorada barafka oo la taagan saaxiibkeeda.
waa boqorada barafka. Laakiin agteeda muxuu ka sameynayaa asiga? Boqorada barafka waxay maskaxda ka qabsatay Kay, kadibna way wadatay. Aasiyana way ka soo tabacarartay, ayada oo rajaynayso inay saaxiibkeeda arkayso meesha la keenayo. Balse markay muddo soo taba oratay, waxay weysay faraskii uu saarnaa. Ayeeyadeedu waxay ii sheegtay inay saaxiibtinimadeen dib u soo laabanayaan. Waa inaan raadiyaa marka. Aasiya waxay bilaaday inay raadiso saaxiibkeeda Kay. Ayada oo luweynaysa ayaa waxay aragtay ubax. Awo maxay ubaxaan qurux badan yihiin. Laakiin maxaa tahay ma u soo carfayaane? Wax inay khaldiin ayaa dhici karo. Boqorada barafka qaybta labaad la socda. Qaybtani intan ayuu ka eg yahay. Waa mahadsantihiin.